أمل تألق وارتقى مثل النجوم. sida ku cad taariikhda magaalada Dimashq waxa ay ka mid tahay magaalooyinka ugu horeeyay ee uu bani aadamku dego waxaana lagu tilmaamaa magaalo madaxda adduunka ugu daada weyn sababtoo ah muddo 6,000 oo sano ayaanay maalin quraata maamul la'aan ku soo toosin ama aanay ku seexan magaalada Dimashq waxa ay mar la jaan qaaday ilbaaxnimadii dadka oo ka unkantay kana hana qaaday dhulka ku dhararan labada webi ee Dalja iyo Furaat oo iyagu ah halkii ilbaaxnimada adduunku indhaha ku kala furtay waxa ayna magaalada Dimashq soo martay xukumo kala duwan oo dadkii soo xukumi jiray ay haysteen diimo kala duwan sida diinta Yuhuudda Kiristaanka iyo diinta Islaamka oo ayba muslimiintu furteen dalka Suuriya bilowgii taariikhda hijriyada xilligii amiirul mu'miniin Umar bin Khattab waxaana gacanta lagaga dhigay oo xilligaa xukumi jiray magaalada Dimashq nimankii loo yaqaanay Bistaandiniyiinta sanadkii 14 ee taariikhda hijriga oo ku beegan 635 taariikhda miilaadiga waxa aanay caasimad u noqotay dawladdii Islaamka xilligii uu Mucaawiya ibn Abi Sufyaan xilka la wareegay aasaasayna dawladdii markii dambe la baxday Umayyiyiinta taasoo loo nisbeeyay jilibkii uu Mucaawiya radiyallahu canhu uu ka soo jeeday oo ahaa jilib Quraysha lana oran jiray Bani Umayya dawladda soo jirtay muddo gaadhaysa 100 sano markii dambena ay hoggaankii dawladdii Islaamka la wareegeen Cabbaasiyiinta oo dawladana amiiradeedu ay ka soo jeedeen nabiga adeerkii Cabbaas bin Abdul Muttalib waxa aanay Cabbaasiyiintu xilligaasi markii ay xukunka gacanta ku dhigeen uga wareegeen magaalada Dimashq oo caasimad ay ka dhigteen magaalada Baghdad oo ay iyagu aasaaseen welibana amiirkii loo odhan jiray Abu Jacfar al-Mansuri oo Baghdad dhagixii ugu horeeyay dhigay qarnigii 2 ee taariikhda hijriyada haddaba haddii aynu soo noqono magaalada Dimashq oo aad ugu caan baxday caasimadii Umayyiyiinta ama caasimadii Mucaawiye ayaa waxa ku yaala goobo badan oo taariikhi ah iyadoo dalka Suuriya badankiisu wada taariikhi yahay haddana waxa ka mid ah goobahaas oo ay Roomaaniyiinta iyo dadkii loo yaqaanay Camaaliqda oo iyagu Carab ahaaba ay ka tageen raad aad u muuqda hadday noqon lahayd daaro masraxyo lagu soo bandhigo ciyaaraha iyo goobo cibaadaysiba waxa kale oo ay muslimiintii hoggaanka u qabatay dunida iyaguna ay ku soo kordhiyeen dalka Suuriya ilbaaxnimo iyo xadaarad hor leh aqoonteeda iyo dhismaheedana wadata waxyaabaha ugu horeeya ee ka turjumaya xadaaradda ay muslimiintu ku soo biiriyeen ilbaaxnimadii hore oo haddii aad booqatid goobaha taariikhiga ee ku yaala Dimashq ku soo jiidanaya waxaa ka mid ah masjidka Umayyiyiinta oo loo yaqaan Jaamicul Umawi masjidkaas oo uu dhisay khaliifkii dawladda Umayyiyiinta Waliid bin Abdulmalik sanadkii 86 ee taariikhda hijriga tamiilaadiguna ay ku beegnay 705 waxa aanu masaajidkani dhisan yahay muddo ku siman 1295 sano masjidkan ayaa waxa goobta uu ka dhisan yahay xilliyadii hore ahaan jirtay kaniisad waxa aanay muslimiintu markii ay fureen Dimashq ka ag dhisteen kaniisadaas masaajid muddo markii ay muslimiintu ku sugnaayeen Dimashq ayna noqotay xilligii Waliid ibn Abdulmalik magaalo madaxdii dawladda Islaamka oo xilligaas u talinaysay koonfurta Faransiiska ilaa iyo galbeedka Shiinaha ayaa amiirkii muslimiintu Waliid waxa uu masiixiyiintii xilligaas kaniisadda masjidka ku dhagan ku cibaadaysan jirtay la galay wada hadal si ay uga iibiyaan muslimiinta dhulka kaniisaddu ku taalay markii ay ogolaadeen waxa uu amiirkii markiiba gudagalay sidii uu u ballaadhin lahaa masjidkii iyadoo ay kaniisadiina la burburiyay waxa aanu isugu yeedhay muslimiintii waxa aanu ka codsaday in ay bilaabaan masjid u qalma caasimadda dawladda muslimiinta kaasoo qaadi kara dad aad u tiro badan waxa aanu furay khasnadihii dawladda waxa aanay sheegaan khubarada taariikhdu inay gaadhaysay lacagtii lagu dhisay masjidkan 5,600,000 oo diinaarka xilligaas ahaa oo aan maanta la garan karin wax lagu qiimeeyo waxa kale oo Waliid bin Abdulmalik ka codsaday in la dhiso masjid aan hore loo dhisin dibna aan loo dhisi doonin haddii ay noqoto dhinaca quruxda iyo weynaantaba masjidkan ayaa waxa uu ka kooban yahay 2 qaybood oo kala ah qaybta gudaha oo iyadu markasta lagu tukado
qaadina karta 10,000 oo qof, iyo barxad weyn oo loogu talagalay haddii uu masaajidka inta kala buuxsanto in lagu tukado. masjidkan gudihiisa waxaa ku yaalla sida ay aaminsan yihiin dadka reer Dimashq qabrigii Nebi Yaxya calayhi salaam.